سيدا الله فضيستنا ومفضوضا وخير الأمور أوسطها هذا وحنو باهناي تاريخهان إنانو إن يراد عينو كوحدان ماشا إيكاتيميد أفكار تدو حيتا كو لفظيغا الصهيون الأول مركي أقوه الرئيسي لفظيغا لأركي أما إريغانا الصهيون الأول وحاول أجد الصهيون الأركان ولا أجد لفظك الصهيون لأول مرة الأركي وحالقوا أركي العهد القديم وقارتي نبي الله داود وبقرتو يديسي وماشا وكدكتي أرن كانوا حكوب بيقما سيال بقل يلحظا إلا كن انتي أدحيسي وعيسى هرتي مركي أقوه الرئيسي إلا أركي لفظنا صهيون كلمة صهيون مركي أقول رسالة أركي وحالوا أركي كتابك العهد القديم هرتكو أرنك لبعض دقدقاق لو يقان المكابين باللوضي كدي مركي يهود كسو اللابتين قفالكي بابليغا انتي أود حيسي شنبقل إيو صدن يسيديدي إلا إيو شنبقل إيو سيديتن يلحدي oo miilaadii ka horeysay ayaa hadana waxa la arkay lafdigan sahyuna meesha yaal ujeedada dhaqdhaqaaqa u sameysmay am xarakada al-makabiyin loo magacaabana waxa ahayd ama loo sameeyay in dib loogu soo rogaal celiyo sahyun dibna loo dhiso haykalkii Suleymaan saddex dhaqdhaqaaqa loo yaqaan barkuuxiya oo ah isagu mid u dhaxeeyay 118 ila 138 miilaadiga ayaa waxa la sheegaa inuu ahaa dhaqdhaqaaqi ama ururka kaliya ee Xamaaska ku beeray Yahuuda meel kastay joogaanba kuna tirtirsiiyay ku guubaabiyay inay dib ugu laabtaan xagga ay Falastiin ayna ku ururaan dawlad Yahuudina marka la sameeyo dhaqdhaqaaq kala bilowday oo hogaaminaya Moses al-Kriti iyadana kama ay liidan xagga fakarka xarakadii haddaanu tilmaanay ee Barkuuxiya